oo cashaynaya oo qaxweynaya oo sheekaysanaya oo shaahaya oo tol iyo qaraabo ah oo asxaab ah oo aqoonley ah oo aabbayaal ah oo hooyooyin ah oo ilmo ah inta loo yimaado in lagu shabaxo madaxa xabad xabad looga toogto waxa annaga maanta na haysta ee amnigeenna kharibahaya ee diinta intay u soo dhigtaan magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala ku been sheegahaya oo aayaadka ilaahay ku been abuuranahaya saxaabadii baa lagu salladay oo lagu imtixaamay waa khawaarij waa firqadii ugu horreysa soo baxda waa firqada ugu axaadiis badan ee nebigu uu ka digay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh weli 1400 sano ka bacdi maxaan la noolnahay dad tukaday oo salaad kale sugahaya oo cashaynaya oo qaxweynaya oo sheekaysanaya oo shaahaya oo tol iyo qaraabo ah oo asxaab ah oo aqoonley ah oo aabbayaal ah oo hooyooyin ah oo ilmo ah inta loo yimaado in lagu shabaxo madaxa xabad xabad looga toogto wixii ka dhacay hotel xayaat nagama fogeyn shalay bay ahayd waxay dhaceen markay adduunka waxaasoo kale ay ka dhacaan hadda waa la joojiyaa nolosha waxaas inaysa soo noqon baa laga shaqeeyaa waxyaabaha la yaab kale cajaa'ibta le waxay tahay xaalad aanan ku jirin baan jilaynaa wax saas u weyn baa dhacaya dad maqaawiraha la dilayaa waxa weeye wallahu almustacaan arrin caalwaa ah oo qalbiga soo dhufsanaysaa dhacaya deere deere u hardin mayso noloshu isbedeli mayso gaaladaaba maxay sameeyaan hal daqiiqa ha loo aamuso ha loo istaagay yidhaahdaan annagu maya maalinka xigtay war intaa ka weyn baa dhacay maxaa dhacay madaxweyne hebel baa loo dhaarinaya inuu xildhibaan noqdo dadkii la adayba waa kama xasharaad baaba'ay oo kale ilaa intee bay markana bixinaysaa in annagoo dab ku taagan aan iska dhigno inuu mukayf noo shidan yihi oo wax walba ay caaniya nabada yihiin ilaa intee bayna bixinaysaa in maxaa la yidhaahdaa diinkii waxa la yidhaahdo maqaasidiisa in lagu tunto oo diintii been laga sheego oo nafti ilaahay uu yidhi hal la ilaaliyo lagu tunto oo cirdigii la banaysto oo maalkii la banaysto oo ubadka inta la marin habaabiyo la kaxeeyo ilmaha yaryarka hadba inta la kaxeeyo furin la geeyo dabka lagu shubayo qaarkooda laga soo qabtay maxay ku leeyihiin ma ogeyn waxa naloo wado amar baa nala siinahayey salaada macaama aanan tukanayn limaada mashquul baa tiina ha tukanina nalagu lahaa maxaana loo wadaa gaalaad soo laynaysaan murtadiin abaa loo wadaa xuduudaha laga tallaabinayaa kuwa kaloo muslimiina loo wadaa waxaa loogu sheekaynayaa murtadiin gaala weeye ma tukadaan ma magac waa dad go'doon ah oo laga xiray caalamkii oo la dhaga xiray oo qaarkood zaka loo qaatay ayagoo 10 jir iyo 8 jir ah waxaas diin ilaahi ma ah diinta dadkii lahaayo inay ka difaacdaan la rabay waayo ma culimada ma inta tukanaysa weeye intay ku soo wajahan yihiin weeye wixii ka dhacay meesha la yiraahdo magaalada muqdisho wax naga fog ma aha muqdisho waa caasimadda wadanka yaana been liisu sheegin wadanku waa mid muqdisho intay halaysan tahay Puntland waxba uma dhaqna muqdisho intay halaysan tahay Soomaaliland waxba uma dhaqna muqdisho intay halaysan tahay koonfur galbeed waxba uma dhaqna madaxii weeye madaxa qofka hadii looga jiro jirka dhaqdhaqaaqiisa ma kontrolo caasimadii weeye meeshii wadanka looga tarinayay weeye meeshii la isugu imaanayay weeye meel uusan cidi ka sheegan karin cid kale weeye meel xilka waxa ku baabaa la wada leeyahay eediisa weeyaan meel aan la dhihi karin ilaahay iga soo fogeeyay waa mahad iska leh waayo haddaan meeshan ka joogo waa khalaas weeye maya ma aha qaraarkaaga meesha laga goynaya meeshaa weeye meesha lagaa eeganaya meeshaa weeye dadka ku baaba'aya dadkaaga weeye adiga laftaada shalay waad joogtay duruuf baa kaa soo kaxaysay hadday nabad noqonayso inaad ku noqoto waa laga yaabi lahaa ama danaad u doonato waayo maantaba Nairobi baad aadaa Ethiopia baad aadaa Addis Ababa baad aadaa Turki baad aadaa kaagama shishayso bale way kaaga sokaysaa in la eegto marka say wax u dhacayaan oo lagu eegto cid kaliya joogta arintaas u gar ma aha intay meesha marka naga halaysan tahay halkan waxa laga hagaajiyo waa dhicis meesha in la isugu tago waa laga maarmaan inaan loo deynin qolo ku qaraabanayso shayaadiinta inaan loo deynin dad u arka maslaxadooda inay tahay inay baladan sii joogaan inaanan loo deynin siyaasiyiin isku eeganaya hebel intay kuwa ku sii jeedaan baan aniguna waxa weeye saliya ka hoos bixinaya inaan loo deynin weeye maxaa yeelay waxa lagu ciyaarayo waa amniga adiga iyo aniga ilmaheena weeye